meel dad jeel ah oo jeel dad ku xiran yahay oo karbaashku ka socdo oo jeemanka waaweyn lagu garaacayo dadka oo cadaadka ka yeeraya labadii dhagood gawwa baa iga yeedhay ummadda halkaa ku xirxiran jinni iyo muslim dadku waa isugu jiraan jinni iyo insiba ilaahay baa awoodiisa ugu tusay subxaanahu wa tacaala gaal iyo muslimba dadku waa isugu jireen qolol dhan oo saa u safan baad arkaysaa darbi dheer oo aan la fuuli karin baa dhinacan ka ah intaas oo tarsiga derbiga tarsiga hoostiisa guryo ku yaalan waa guryo gacgaaban oo xayn ah ilaa 6 ilaa 7 waa buuxaan albaabadooda hore waa bir shabaq loo qof ay saab ay wada haystaan iyagoo ooyaya oo cabaadaya oo qaarna Allah buu baleeyo waa muslim qaarna Jesus Christ iyo balay ku qaylinayaan iyo waxaan la garan karayn ilaahay baan bari waxaan ku waa alban u naxay alban u khalkhalay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال سلامتاس آتك وقيمة بدن كدب رمضان كريم إن شاء الله تعالى عاوة وحائنو بلابن سبيش رمضان إلهي وحن كبري يا عز وجل إنو نوافجي أعماشة تدعو عن نغانا أقبل ربي سبحانه وتعالى وحن قصة إذا كسر حقنا ولا ليال إن أغيسيس ولا لها رير يوروب يوروب جوغا سافر كي رمضان كدب أنا وإيمانيا وليس يجري سبب جرى درتود وأن كباقدي sidoo kale walaalihii Australia u soo socday waan ka soo tagay Australia waxaan joogaa dalka Kenya insha Allah taala walaalihii damacsana inay Australia yimaadaan waa ay u bedelan karaan safarkooda Nairobi Kenya waxaan joogi doonaa insha Allah taala waqti aad u gaaban saan rajaynayo safarkii markaan baxayna insha Allah taala idin la socodsiin doonaa waxaan igala soo xiriiri kartaan nambarada kala ah 254 741 280005 haddaan ku celiyo waa 25 47 41 28 eber 5 kan kaleetana waxaa weeye insha Allah tacaala waa isna sidoo kaleeto 2 5 4 71 eber 3 57 31 sideed baa u dambaysa haddaan ku celiyana waxa weeyaan waa 254 710 357318 insha Allah taala halkaas aad la soo xiriiri kartaan ciddii markaa u baahan booking inay samaysato walaalaha waxaan la hadlayaa markaa safarkoodii uu Australia xagga u soo socday walaalayaal haddii aad wax dhiba kala kulantaan walaalaha teleefanka idinka qabanaya waxaad wixii cabasho ah ama dacwo ah noogu soo diri kartaan emailka shaashada ama muraayada screenka hadda ka muuqda ee ah dacwo.star.ruqyah@gmail.com haddii aan ku ceshana waa dacwo.star.ruqyah@gmail.com إن شاء الله تعالى ولا ليال قصة هذا أن هردع هانت أو قيبت هذا أن هردع هانت أو قات قصة وحي كهالليس إن شاء الله تعالى حبسيو لو سميستي إن لو جردلو لو عقابه جنك مركا ديدا شقادي لو دري سحر مثلا مركي قفك لو سميو جنك لا ديرو قفك هدو عبادة بدن yahay ay soo cararaan meelihii loogu talagalay in lagu ciqaabo si shaqadooda ay u sii wataan waa xabsiga hadda insha Allah taala maamud ay soo qaadatay qisadana gadaal baad si fiican uga fahmi doontaan dhageysi waan insha Allah taala ilaaha naga dhigo kuwii ku cibro qaata oo ka faa'iideysta wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال سلام آدو سرهيس كذب عاوة سيدي هربا أنو غبرتين برنامج جدين إنو سعون جري أها أود الله سبحانه وتعالى إنو قرآن كي يهيداو وحن ما تعاوة إن شاء الله تعالى مرتينو هو يسوماليا دو كسو دوينيا إن إدو واحد إنو غورنتا وحاكو داوانا يدد آدو فربضان ولا لها كميدا ودور كنو قفأ دعادو إن شاء الله تعالى كسو غاري دونتو عبرنا أي نقول دونت أود ربي سبحانه وتعالى أوجش كينيسو مرك إن شاء الله تعالى كسر برنامج كني أود الله سبحانه وتعالى إنه قرآن كيه داو بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وندوه يد وحن ربع إن كهله معجزين كإلهي وآد وين بدنا دتكو يقين سنين دت بدنا أنا يقين سنين لكن وح عجائب وما ركتي مسكح بن آدم كوين
in rabbigana wax kasta ilaahay inuu wax walba awoodo oo maaragtay awood leh weyn uu yahay baan halkan ku arkay ma sha Allah mucjiso weligay aanan arag maskaxdayda ku soo dhicin ma sha oo Allah ilaahay inuu baawarka intaa la eg leeyahay aanaba aqoonba xaqiiqatan markaan u hadlo subhanallah ilaahay baa nastahan subhanallah intaan awoodda alle iyo mucjisooyinkii la yaab kala hal aragtay aadan u gudbin waxaan jeclaan lahaa marka hore bal xoogaa inaad noo dulmarto maxaad soo martay inta aad xanuun aad dareemayso dhan bal wax yar inoo dulmar kadibna waxa kugu khasbay in aad quraan raadiso iyo waxaad la kulantay marka arrimaha la yaab kala dib baan u dhiganayna insha Allah tacaala wax yar waxa inoo dulmartaa maxaad soo martay jazakumullahu khayran waxaan soo maray eedo waxaan ugu yaraan 27 sano baan xanuunsanaa 88 ba xanuunkaan u bilaabay waa soo kala heerar adkaa marka aad baaban u yaraa markuu xanuunku bilaabay waxa weeye isbitaalaan ku wareegaa isbitaal Soomaaliya isbitaal baan ka aaday Kenya isbitaal baan ka aaday Zambia isbitaal baan ka aaday South Africa isbitaal baan ka aaday Malawi isbitaal baan ka aaday Mozambique isbitaal baan ka aaday inta anoo qaxooti ku oo wareegaya oo caruurta wadaba haddana xanuunka kan wuxuu igu dhigay xanuun mucjiso ah oo ahaabada oo dhaqaatiirtii garan weyday oo anigii la wareeray waxaan u malaynayaa 27 sano maba seexan jirin hurdaba waxa igu horeysay maalintii halkan quraanku igu bilowday baan hurdo caadi oo bini aadamku seexdo waagii hore aan seexan jiray aan xasuustayba ilaa maba seexan jirinba niyo xaaladdu ha kala daraato hadba meel aan marno dhaqaatiirtii wax weyday halkan hadda Melbourne intaan imid waxaan sanad iyo bar baa dhaqaatiirtii igu sameeyay midba ii gudbiyaa mid walba wuxuu dhahaa waxba kuguma hayo midka ka khatarsan buu ii gudbiyaa intaasoo MRI baa la igeliyay nakata gabadhan wax ay qabta male buu yiri dhakhtarka ugu dambeeyay wuxuu yiri gabadhan wax ay qabta haba yaraatay ma jirto qof ka caafimaad badan oo isbitaalka Melbourne iguma aha customerskayga ma ku jiro waa adba caafimaadkeedu 100% u yahay waa kuwa Australia jooga Melbourne waa Melbourne waa hal sano iyo bar baa waxa ku leeyahay waxba ka weyn waliba anoo xanuunsanahay waliba hal sano iyo bar 9 bilood wheelchair aan ku socday baan ku socday subhanallah ma garanaysaa waxa la iga qabtay labadii lugood inkastoo dhinaca midigta u badnaa waxa la iga haystaa dhabarkii waxa la iga haystaa dhuuntii waxa la iga haystaa madaxa adigu inta qaar ka hor aba igu daray minid igama xanuunku igama dago waxaan suubiyaa marka culumadii markay ii cadaysay inaan meeshan xanuun dhakhtar oo waxaan ku yiri ilaahagii ku abuurtay maxaad ugu hormar weyday maxaad ilaahay u dhaaftay anigii baa isla hadlay dib aan isugu noqday bar horta allahaagii u noqo haddii waxaan shallaayay an allah ku hormari lahaa intaas oo 27 sano aan dhakhtar wareegay waxaan shallaayay maxaad ilaahay ugu hormari weyday markaasay igu soo dhacday inaan raadiyo Facebook-gan waxaan ka arkay Sheikh Maxamed Istaar Ruqya markaasaan Sheikh Maxamed Istaar Ruqya waa inaan helaa waa kan ninkii dawadayda ku jira 4 bilood aan ku raadinaa ilaahay quraankiisa ku jira laakiin adu sababkaaga soo dhig waxaan ku leeyahay niyo quraankaas saasay tahay ana inta isku tufaay dhowr sheekha quraan la iga saaray South Africa quraan oo sheekha iska saaray Sheikh Maxamed Lado Malawi Sheikh Musa iska saaray haddana Brisbane Sheikh Musa oo iska la nimid qaxootiga iska saaray wuxuu igu akhriyay quraan ciida ka badan waxba iga degay laakiin ma ku caafimaad isaan rabay ma noqon waxa dhacday marka xanuunkan aad buu ii dhibay muddo ijiidanayay dismoral baan noqday waxaan iri bas waaye dhaqaatiirtii waa ka samidhay Soomaaliya iska aad meelahaagas tuulooyinkaaga iska joog intaana sheekh meesha ku aran ka hor sheekhi markaan u imaaday quraanku isaaray waxa waaye dhowrkii hameen oo dhan daba i haystay waa miyir daadsanaa waxba ma maqlayn dhaguhu waa i xiraayeen indhaha wax kama arkayn 3 baro hore situationkaasaan ku sugnaa
inkastoona sheekha u sheegin haddana waxaan lahaa qur-aankii baa weli socda oo waqtigii ma dhammaan. waxaa bacdil mucjisadii wixii ka dambeeyey habeenkii ugu dambeeyey ee 6dii bari baan wareeray. qur-aankii baa sheekha igu akhriyay, ilaahay baan baryay, magacyada ilaahay oo dhan baan daldalay. marka 3 beri normal ma ahayn, waan wareersanaa. habeenkii afraadna waa miyir daadayba, waxaan ogaa ma jirin. dhulka un baan isla dhacayay, ma isqaban karo, waa ujeedaa. xiskaygu caadi ma ahayn, maskaxda dabaa iga baxaayay, gacantan way dhimatay, way baktiday. bes waa inay qallashay oo annaafobayaan mooday. lugta waa la mid, laakiin lugtaa la ii qaatay. gacantan waxaan idhi bes way dhimatay. naafa isu goleeyaniho naafo. allah subxaanahu watacaala rabbilciisa jala wajalaaluhu aa i caawiyey. ilaahay baa i caawiyey, ilaahay baa ii soo diray awoodiisa powerful oo rabbi baan arkay. mucjiso wixii dhakhaatiirtu weyday 4 beri baa waxaa iga degay waxaan caadi ahayn. tuura inta ku lahaa tuur waxaan ku lahaa sawirkeeda wuu yaalaa, gurigu yaalaa. dhowr jeer aan idhi maandhooyow sawira, waa intaasoo ilaahay farji ii fure. gurigaa la dhigay, tuur inta iga saareey oo surka agtiisa ilaa halkaas, ilaa labada garab dhexdooda tuur intaa la eg baa iga taallay. dakhtarkii markuu saaray raajidii ma jidhuu yiri tuur, wax meeshaan ku jira male, waa sax jirkaagii. okay, mucjiso badanaa marka aniga arkay, ilaahay awoodiisa. sheekhi markaan u imaaday habeenkii u dambeeyey, tuurtii 4 markii loo qaybso 3 waa tagtay. waa ilaahay awoodiisa, powerful. ilaahay waa powerful. marka dadka moodaya allah inuu mataqaanaa uusan waxba awoodin, wax walbuu awoodaa. tuurtii baraa iska dhacay, dabkii gacantii iyo lugtii way wateen, laakiin intii hore markaan guriga aado xoogaha intii hore male, way iska fiicnaanaysaa, laakiin dabkii weli wuu i haystaa. habeenkii xalay ahaa hadda oo axaddu dhammaanto mandhaydu soo gash, indhahayga ma isku seexan. waagaa ii bariyey, qur-aan baan akhristay, ruqyo aayaan geystay, dhegtaan saartay. waa iiga daray dabkii, waa iska damiyey. waxaan ka ruqyo aaya waaba iiga dadhe, bal demi. baryaan u jeestay, 2 ragcaan tukaday. ilaahu iga bi'i, ilaahu iga bi'i, ilaahu awoodayn addoon daciifaana, ilaahu powerfulkaagii aaw, ilaahu powerfulkaagii aaw. ilaahay subxaanahu watacaala subxiga markii la tukan rabay uu iga qaaday. subxigii baan tukaday, waa iska seexday. marka sheekhan uu imid maanta caawa waa soo kacay. sheekhii baa ballan la lahaa, qur-aan baa la isaaray. mucjisadii iyo powerfulkii ilaahay aan caawa la kulanno. yaqiin aan caadi ahayn, yaqiin aan caadi ahayna caawa gasha. caawa iimaankayga wuu buuxaa, hawa laafuu ahaa. markee maba lahayn ilaah awoodaanid baa kugu samaynaya mucjisadan. caqligayga ma gelayn, weligay iguma soo dhicin. mucjiso weyn oo weyn oo weyn oo ballaaran baan arkay. wax yar aan ka dhex galo walaalaha nala socdo baan rabaa insha Allah tacaala inay wax badan na fahmaan, hadallada qaar kamid aan ansaxo. walaalayaal, marka ay maamadu leedahay يعني waxyaaba aan maskaxdeeda ku jiro aanan ogeyn oo islahayn waa dhici karaan baa dhacay. yani ma ahayn awoodda rabbigeed ka shakisanta subxaana wa tacaala. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam sidaan la socono, markii uu alla subxaana wa tacaala la hadlay wuxuu ku yidhi oo alla tilmaamay subxaana wa tacaala suurat albaqara, waid qaala ibraahimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta. allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay ibraahim inuu su-aal weydiiyey rabbigii subxaana wa tacaala. uu yidhi allow waxaad i tustaa sida aad wax u noolayso. allana subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayey in uu ugu jawaabay ibraahim calayhi salaam markuu alla weydiiyo o yidhi ibraahim ma shaki baa kugu jira, awalam tu'min, miyaadan rumaysnay inaan wax nooleeyo? ibraahim calayhi salaam wuxuu yidhi balaa walaakini yatma'ina qalbi. haa rabbigayo waan rumaysnaha inaa wax noolayso, laakiin waxaan ka rabaa in ay laabtu ii xasisho, qulubtu ii xasisho. waxaa caadi ah qof walba marka ugu horeysa suu theory ahaan u hayo alla inuu awoodda dhan iska leeyahay, iyo marka indhihiisa uu ku arko waa kala duwan yihin. laba qof oo kala duwan buu noqdaa. marka maamada hadalka waxaa usoo dhexgalay inaan nala socotaan insha allah tacaala. maamada waxay ula jeedaa shalay meeshay taagnayd iyo awoodda alle subxana wa tacaala sidai ay u aaminsaneyd inay awood alle tahay, iyo maanta markii horteeda wax ka dhacayn yaqiinta awoodda alle ay aragtay subxana wa tacaala. laba qof oo kala duwan bay noqotay.
marka eedda sii wada hadalka insha allah waxyaabihii aad aragtay bal inoo dulmar. caawa qur-aankii markii la isaaray waxaa igu bilowday markii ugu horeysay baqdin badan iyo walwal iyo maxaad mudan doontaa. cabaar ka bacdi sheekhi qur-aanka markuu igu waday meeshaasaa midi la iga geliyey, midi laba dhinacba af kule halkaa la iga suray. nin weyn oo awood, ilaahay baa weyne awood, isagu markaa isbidaayey baa halkaa midi iga geliyey. tooreyda waa u jeedaa tooreyda markuu gelinayo. marka waa wixii iigu horeeyaba aan arkay. tooreydaasa iigu horeysay qur-aanka markii la igu bilaabay. tooreydii marka waxaan idhi sheekhow toorey baa i haysataa, halkaasa iga haysataa. alla bari buu dhahay, ilaahay bari. ilaahay baryadiisi baan wadnay, qur-aankii sheekhi waday, ilaahay awoodiisi baan arkay subxaanahu watacaala. ninka waa soo orday, wadnuhu iga geliyey toore, isla iyadii buu soo geliyey. tooreydii inta iga haysatay intay usoo wareegtay. tooreydii wuxuu dhahay naftaan kaa qaada, hadda naftaan kaa qaadaya. kabacdina qur-aankii baa sheekii ku waday halkaasuu fuula. waa nin aada u xoog leh. wax yar eedo aan kaa dhex galo si walaaluhu ay bal mar walba update ku helaan. walaalayaal waxaad xasuusataan waxa ay leedahay toorey buu wadnaha gelinaya. waa nin ka xoog badan, waa garanaysaa, waa hooyo ujeedaa. nin ka xoog badan, weliba intaasna xooga iyo weynaanta ku darsada inuu jin yahay. markuu toorey intuu mindi calooshaada ku qabto ku yiraahdo waa ku gelinaya, maxaad isdhihi lahayd? haddaan ku dilaa maxaad soran lahayd? indhahaagana aad ku arkayso waa baqaysa, waa cabsan lahayd. laakiin wuxuu waxaa u sameynayaa inuu cabsi qofkii ku abuuro. hadduu qofkaasi rumeeyo rabbulcaalamiin oo yidhaahdo cabsan mayo, waxba igama qaadi kartid, waa inuu taagtiga bedelaa. markay tiri maamadu war waxaad sheegaysa waxba kama jiraan, adaa aniga ku dilaya, eragaas isticmaalaysa, adiga ku dilaya. tiri maanta maalinka aniga ku dili lahaa wey. mindidii wadnaha intuu ka qaaday madaxa ka saaray, waan ku dilaya haddana yidhi. marka bal maamada waxaan usoo galay inaad nala socotaan. marka madaxii markuu kaa saarayna maxaa dhacay? madaxa isagii oo dhan baa fuulay. madaxayguu fuulay, mindidina waa saaray, labada lugood buu ku istaagay, waa soo forarsaday, halkaasuu midida iga saaray. culayskiisa laftirkiisa qoortaydu waa dareemaysa. waa nin aada u weyn, allaa weyn oo waaxida. nin baaxad la waayo, ilaahay dadka addoommadiisa u baaxadda siiyey ka mid ah. wuxuu qabaa dhar isu eg oo fitijaariga soomaalidu dhahdo, oo surweelku inta horena u wen yahay, intaasuna u dhuuban yahay. waa nin dhisan, waa nin military ah, waa nin ku talagalay mataqaanaa inuu wax uun sameeyo. powerful baa ka muuqday. markii qur-aankii lagu akriyey oo aan iri ilaahay baa kaa weyn, ilaahay baa kaa weyn, awoodda ilaahay baa jirta, awood mali daciif baa tahay, shadaadiintaa tahay. oo sheekina qur-aankii ku akrinayo anigana qur-aanku maxay tahay bilfalaq iyo magacyadii ilaahay ku akrinayo. ninkii waa degay. markuu degay, ninkii markuu inta ka degay dhulku degay, halkaanu ka soo jeestay. halkaasuu yimi. halkaa markuu yimi ninkan geeshu wataa, waa generaal, geeshu wataa, ciidan buu wataa, waa buuxaa, gurigu waa buuxaa. sheekho waan baqayaa ninte, waxaanu ciidan oo askara hubaysan oo adigii mataqaanaa kugu soo jeedo. de bani aadan baa taa, waa baqaysaa ma ogtaa. sheekho waa buuxaa qolku, ciidama geeshu wataa, ninku ciidankiisii waa kana. waxba maaha buu yiri, qur-aanka ilaahay ku akri. waxayna kaa dhex galo dhalatuska uu sameynayo ciidanka tirada badan oo guriga keenay. waxaad ku dartaa bal ereyada uu isticmaalayay maxaa ka mid ahaa? boqor baan ahay, wuxuu dhahay waa runta halkaasaan iloobeed. waxaan ahay buu yiri anugu nin boqor ah, Mambaasaan deganahay, boqortooyo dhan baan ahay. waxaana waa geeshkaygii, ciidankan anaa wata, anaa boqor buu dhahay, anaa boqor. walaalayaal macnaha markii uu madaxa ka soo degay ninkii isagoo mindidiisii wata, hanjabaadii wadnaha ay socon weysay, madaxii mindida intuu ka qabtay ay arrintiina socon weysay. ninkii waa soo degay, ma intaasoo ku haray? maya, wuxuu isku dayay haddana inuu bal beyj cusub furo oo hanjabaad ah. wuxuu bilaabay inuu ciidankiisa u yeerto. qolkii iyo gurigo dhan ba isqabsaday, wada ciidan qabsadeen. maamadii wahaa qaylisay, cirkiga dhulka waa la tegay, ciidanku waa tiro badan yahay.
ninkii hanjabaad buu sameynaya tiro badan wuxuu bilaabay inuu faano yiraahdo ma taqaanid hawlo khataraad faraha la gashay oo Mombasa haysta ciidamaan haysta boqortooyaan leeyahay waa Afrika wada magaalo kamid ayuu sheegay wuxuu yiri halkaasaan deganahay boqortooyaan leeyahay ciidamo aad fara badan baa leeyahay waxba iga maqaali kartid markaasaan waxaan ku yiri maamadaasi niyad ugu degto weydiiyo waxa tiraahdaa boqortooyada aad sheeganaysa ciidanka tirada badan leh xoog badan ma boqortooyada ka baxsan milkiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dhulkiisa iyo cirkiisa ka baxsan ba soo waa boqortooyada ka dhaxdisan dhulka dhexdiisa waa uu ka leexleexdo wuxuu isku dayay inuu arrimo kale ka jawaabo waxaan ku yiraahdaa ka leexanin su'aasha ka jawaab wuxuu yiri maya waa magaalo ku dhex taala dhulka dhexdiisa boqorka ahay waxaan ku yiri boqortooyooyinku dhan boqorkii boqorka u ahaaba hooyada quraanka aan ku akhrinay iskala waa dhimanaysa naftaada badbaadso waa kibray quraanka waa bilaabay ciidamadiisii tirada badnaa bal waxa ku dhacay aan maamada u daayay maxaa ku dhacay ciidamadii tirada badnaa ee guriga soo galay ninkii goodinayay oo boqorka sheeganayay oo magaaladan oo Afrika kamid lahaa ana boqorka oo geeshka watay oo isqaad qaaday ciidankiisii quro Ilaahay awoodiisii buu ku baaba Ilaahay awoodiisa Allah awoodiisa subhanallah Ilaahay mutakabbirka awoodiisa ciidankii ninkii waa baabacay xogaa uu niyad jabay uu arkay in baawar ka weyn haysto in Ilaaha anigu aan ku goodiyayo oo sheeganayo oo magan galayo oo u dhawaaqanayo Ilaaha awood badan inuu yahay uu arkay ninkii wuu baqay marka ciidankii oo xaskusha markuu arkay wuu baqay xagga gabar fadhiday buu gadaasheeda ku gabaday waxaan ku iri sheekhow ninkii gabashu gaaray meel halkaan ku gabanaya wad buu yiri quraanka sheekhina quraanka buu waday ويسان واي ماشي وكسو بخو مeel halkaan oo banaan u istaag ماشي banaanka markuu istaagay Ilaahay awoodiisa Rabbiga Raxmaanka waxba kama qarsoona laakiin aniga powerka Ilaahay baan ku arka Ilaahay powerkiisa ay tusay wuxuu sameeyay halka markuu istaagay shababkii wuxuu ka soo guray qashin ciida ka badan rahgaboobo indhala oo remote jiidanaya oo remote bacsaas u waxaysan baa ku jiro xoogaa dheer oo bacdu ku xiran tahay waxay ku xiran tahay raha bacda qashin baa ka buuxa alaab baa ku jira wax daran oo tima iyo balaaya ku jira magacayga kor uga qoran waa shoogay anigi waxaan idhi bas waay waa ku dhamaatay maanta hadiiba milc ku jiiday adiga alaabtaada iyo adduunkaaga shoog baan qaaday sheekhu wuxuu yiri no ha baqin Allah u dhiib arinta Allah maganga Allah urso Ilaahay awoodiisa qabso Ilaahay awoodiisa ma qabsada Ilaahay awoodiisa ma qabsada Ilaahay magaciisa ma qabsada wuxuu yiri sheekhu waxaad akhridaa bil farq إلهي توحيدكيس بالفرق بان أخري بعد وافرنت بعدي إلهي أودي سبحانه وتعالى ما يكون فرنت راهي إنها لآ بعدي وكفرنت راهي هورت وابا قبتي أصقواتي أولا إن دبما هينو إن لا راران يلا استعمالي كاسوا كداي بعدي ما صهاتي بعد الشيخ وسيء لا معقول إله برب أود إلهي قاعد مالك الملك ده وعيدا صدق عيدا كإلهي عيدا كوين مشري إلهي من بري إلهي من بري إله وجب إله إتوس إله وجب إله إتوس إله أود هذا إله أود هذا بس بعد ما يفرنت بعد ساعة مركي وفرنتي مقعيجي يوحي قشنك كتري يوحي واجبتين يقولنا دم بس بين نقطين بل إلهي أود السيء قادر نمديس سبحانه وتعالى رب العزة جل وجلاله مسكح هذا وحك الصور لإكرم معها معتسوين كإلهي قفك علمك علي ودين تدح علي وكتابك تدح علي وعلمك إلهي برتي ومباقران كرا دادك يغان علمك بدح علي معتسدا سوكال مركو أركو يقين هرله يا عابدة هرله يا إسليبة هرله أنا جيبها إسليبة عاو أود إلهي ما نسكو دي بعد wax ku jira aan garan waayay oo mugdi iiga jiray waxa ku jira yaa ka furatay bacdi gubatay iyo bahalkii raay gubtay bacdi Ilaahay awoodiisa way furantay markay furantay waxa ku jira ilmaha ma dheertooda oo horeyna ka xiran gadaal ka xiran oo qaar ka hore dhiiga ku jira qaar ka dhexe waxa ku jira wax
yalow camala oo aan is iri ma wax la miiraybaa furo qalloocan oo saa u qalloocan baa ku dhex jira qaarka dhexe qaarka dambe waxaa ku jira uuska xoolaha oo la tuujiyey iyo isagiyo fadfad yara oo saa ugu wareegsan oo biyaha ku dhex jira de markaasaa alla bari bilowna sheekhiina wuu akhriyey awoodda ilaahay baanu akhrinay ilaahay baan bariyey ilaahay baan magan galay yaa allah waxaan adaa awoodu leh ilaah waxay yihiin ma naqaano ilaahay awoodiisa iyo mucjisadiisu wax aad u weyn weeye maskax bini aadan aan kusoo dhici karin wixii qur-aankii markii lagu akhriyey abeesada adduunka ugu weyn bay noqotay anaa ka baqay halkaa iyo halkaa inta ka dhexleh bay saa isu biliqda waxay leedahay carab dheer oo labadaas ka kala jeexan carabkii bay saas igu soo leedahay anigii bay saa igu soo leedahay carabkii anigii bay saa igu waa baqay shiikhu ha biqin buu dhahay ha biqin ilaahay tawagal ilaahay isu dhiib ilaahay bari qaarkii dambaa dabku ka qabsaday dabadii dheeray baa dabkii ka qabsaday wuxuu socdo way rafatay madaxay ka rafatay naag waxaa ka soo baxday naag dheer la dhaho subxaan allah ilaahay awoodiisu fara badanaa wax yar eedo halka igu qabo insha Allah taala si walaalaha aan ula yani ugu baraarujiyo walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala sabab socotaa wuxuu inoo tilmaamay quraankiisa kariimka ah wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ugu taqwa badan ugu cabsi badan oo ka cabsada adoomadiisa caalim cilmiga leh maanta waxyaabaha hadda maamadu ay ka hadlayso hadaladeeda waa dareemaysan marka hore say ahayd iyo marka dambe say u tilmaamayso in ilaahay iimaan u ziyaadiyay in ilaahay awoodiisa ay aragtay waxaasoo dhan waxaa garan kara qofkii maanta indhihiisa ku arka ama qof arkay oo walaalkii ah intuu arkay waliba qalbiga u furo dhageysta hadalkiisa fiican u fahma marka rabbigeen subxaanahu wa tacaala waxaan idin tilmaamayaa sixirolayaasha qaabka ay wax u naqshadaynayaan markuu alla ka hadlay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayay إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إلهي يقول الله سبحانه وتعالى سحرونه مشو دون هجو علمي دون هذا سكست علمي بيسو هو هذا أدفانسر أما بيد هرمسه هو هذا الله يقول لي من لي باري سنة بابي سبحانه وتعالى وحد كفكرتها انت وحياه هذا الاسكو حدا فيري اوستا فيري فورها فيري أبيسا فيري naag abeesa ku sii jirta fiiri waxaasoo naqshad ah ninkii watay ee jawaab ku watayna dhabarkeeda ka soo baxay waa dhibkeedii macnaha hadda intaysan maalinku hadda arkaysay maalmihii ka horeysay dhabarka iyo qoorta iyo meel walba oo intuu ku jira ah waliba hadalka maamada waxaan rajeynayaa insha Allah taala way soo hal dhaaftay marka quraanka cabaar waday waxay bilaabeen inay cararaan jirkeeda waxay bilaabeen inay socdaan waxay isku dayeen inuu baxsado kadibna markuu arkay inuu subaxsan karin midigtu soo raacay gacanta bidix oo ka shubmay xasaan lillah halkaas uga shubmay markuu soo shubmay banaanka soo baxay wuxuu leeyahay waxaan jawaabka aan ku wato iyo hawshan iyo waxaan oo dhan waxa la igu talagalay dhabarkaaga ku jiro dhibkan halka ku wado laakiin sheekhana iga soo saaray isagoo marka jaahil ma fahmo quraan iyo Allah ma yaqaan subhanahu wa ta'ala wuxuu arkay wax marka uu arkayo kaliya شيخ أنا قصص صاري بير شيخ كاموس صاري رب العالمين القرآن كسر صاري لكن واحد ولا فهمتان وحاسو سرعة ولا نخشلي ولا دياري الله داوني ولا سعودي أركي بعد ندي بفرق إلهي بفرق والله هذا أركي سان ننكي كو خصبي ما هو سو تشويس كيس دورتي سو كمتر جالسين خصب بوسو دادي وبقى يا وعكلي وحكى بقى إني باتي جالس وأنا بصوري ساكي هذا أنا إلهي بابربري abeesadii ugu dambeysay waa tan maamada hadda ay marayso in dad qabsaday ee gubanaysay kadibna naagta ay ka soo baxday naagtii maxaa ku dhacay markii dambe markii hore kale ma ahi waxaan yeeshay geesnimo yeeshay waan arkay ilaahay baawarkiisa markaan hidideela ay galay waxaa rabaaba jinka inaan ugu sheeqo uga hormaro baabaasho because awal waa baqay ilaahay subxaanahu wa ta'ala baqdintii uu iga qaaday baawarkiisii buu i tusay waan yaqiinsaday waan si fiican baan ilaahay u bariyay sheekhina quraanka buu ku daldalay oo ku akhri aniguna ilaahay baan bariyay waxaan yaqiinsaday marka naagtaas inay baaba'ayso marka naagtii quraanka markii la saaray waa ay gubatay meeshii bay ku gubatay martii bay ku bastay naagtii iyo rahii iyo abeesadii iyo bacdii iyo xuduntii iyo wax allaaliyo wixii ninkaas hoog iyo baasoo horgufay meeshii bay ku baaba'een
eedo marka dambas bay noqdeen waxaasoo dhan marka ay dhacayaan ninkii muxuu sameynayaa fiirsanaya taagan oo fiirsanaya awood ilahay la yaabay sababtiisii isagoo waliba madluuna markii hore power buu isbidaayay anuuba ii gogoodinayo saan u dhahay laakiin markaas isagoo madluun ah waad u jeeday inuu madluun yahay ayuu taagan yahay waana u jeedaa hortiisa ilaahay awoodiisa wuxuu samaynayo wuu u jeedaa rabbi subxaanahu watacaala wuxuu samaynaya wuxuu falay dee labada low buu dhigto wuxuu yiri mataqaanaa halla cabaar buu dooday maya cabaar buu dooday waxaa la yiri ma islaamaysaa ilaahay awoodiisa waad u jeedaayo ma qaadanaysaa ilaahay maalinta qiyaama waa ninka mataqaanaa loo soo baxayo bacadka jinni wal insi oo dhahaya yaa maanta maalinku mulki ah maanta yaa boqortooye u sugnaatay jinni wal insi waa dhoobantihiin kulli iyagoo suxsan oo daciif aan awood lahayn yaa ilaahay isaas dhahaya oo ku goodinaya asaga isu jawaabaya ilaahay wuxuu leeyahay ana maalikul mulki aniga waaye maalikul mulki oo adduunka iyo aakhiraba iskale aniga waaye intaas markii uu aan dhahnay ninkii wuxuu dhahay jilbuhu dhigtay wuxuu dhahay waxaan doonayaa maaragtay waxa dhiba ay haysto dhahay dhiba ay haysto ilaahay aniga ma aqaani laakiin waan doonayaa inaan barto anigana qafaalkan waa lay soo qafaalay maamadan korkeeda waa la igu qafaalay lacag 500 la siiyey eri iyo dhiig baa la ii qalay waxaa la yiri maamada korkeeda adduunkan ku hay gubtay maanta wixii aad ogeydeen oo gubtay korkeeda ku hay baa la yiri waana khasbanahay caruurtaydiina waa la haystaa xoog baa loo haystaa iyo naagtayda xabis ay ku jiraan very good waxaan jeclahay walaaluhu inay nala soo galaan insha Allah taala walaalayaal maamada waxyaabaha hadda in xasuusinayso waxa kamid ah ninkii boqortooyo sheegtay marka hore ciidamo badan oo soo bandhigay uu talagalay ku cabsiyo aayadda hadda in xasuusinayso Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay maalinka qiyaamo marka la tago dadkii oo dhan oo tabardaran malaa'iktu joogto insigu joogo jinnigu joogo kulli ay wada suxsan yihiin muxuu ku oranaya Allah subhanahu wa ta'ala liman al-mulku al-yawm maanta yaa boqortooyo iska yaa maanta boqortooyo ugu haysta hal qof hadli kara kuma jiro waa jinni waa insi waa malaa'ik waa xasharaat waa wax walba nuxnuxsoo dhaqaaqa yawm al-qiyaama ilaahay markii wax u jawaabo uu waayo isaga isku jawaabay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu oranayaa lillahi al-wahid al-qahhar boqortooyo yaa iska allaha waaxidka ah ee qahaarka alla keligii ah khasbina saaxiiba Allah subhanahu wa ta'ala jinka hadda boqorka sheeganaya jirkeeda ku jira dhibka ku hayay banaanka intuu soo saaray isagii ciidankiisa kala saaray Allah boqortooyo cidna aysan ku haysan markuu arkay awoodiisii oo waxa hortiisa lagu sameeyo arkay jilbuhu dhigtay cabsi u bilaabay inuu isdiibo madaxa dhibto keenay inuu yiraahdo waxaan rabaa in Allah rumeeyo subhanahu wa ta'ala su'aasha ku celiyo waxa kamid ahayd maxaa ku qasbayna Allah rumeeyo ma cabsatay wuxuu yiri maya waxaan arkay awoodda Rabbi subhanahu wa ta'ala intaas ay u filan inaan rumeeyo Rabbi subhanahu wa ta'ala anigana halla in naxariisto maanta dhibkaan oo dhan waxa ii keenay maxbuus ma aha laftikii maskiin la duleystaan aha nin la soo khasbay lacag la siiyay baan aha inta hadii la iga har lahaa mar baan xataa ka bixi lahaa heshiiskii aan galay waxa iiga sideeran bil caruurtayda maxaabiis way waa la haystaa islaantii caruurta waa la haystaa waa la qafaashi waxaana loo haystaa rahmada furasho ahaan haddaan lacala dagaal ka soo noqdo iyaga la rabaa in la cuno la dilo yani in qoorta loo dheereeyaa la rabaa taasaan marka waxay ugu khasbaysaa inay cidiyaha ku dagaalamo ilkaha ku dirno ninkii noocaas ahaa markii sheekada kadib uu Allah rumeeyay subhanahu wa ta'ala qisadiisii maamadan u deynay insha Allah markuu Allah rumeeyay ninkii maxaa dhacay wuxuu yiri waxaan u baahanahay see ilaahay u baranayaa see ilaahay u baranayaa annaga waxaana la baray Jesus Christ inuu ilaah yahay oo isaga un baana la baray meeshaana wax Jesus Christ ka xog badan wixina la baray wax ka weyn oo mucjiso ah oo rabbaaniyahan u jeeda marka anigu see diinta ku gali karaa see ilaahay iyo diintiisa ugu tagi karaa waxa la yiri ilaahay diintiisa waxa ugu tagi kartaa mar hadaad islaamtay diin dad waxa lagu geynayaa masaajid islaamig ah baa lagu geynayaa oo ilaahay diintiisa lagu hayo
oo dad mustixiin ahoo mataqaanaa saalixiinho ay joogaan oo jinni wal insi qofkii soo islaamama la aflixinayo oo qur-aanka loo barayo oo ilaahay wuxuu faray loo sheegayo salaad laga rabo oo soon laga rabo oo kulli wax walba wax kasta oo qofka islaamka lagu waajibiyey. eeda marka aan kaa dhex galo ma isagaa oranaya waxaan rabaa diinta inaan barto walaalaha rabaa inaan diinta bartay meel aan ka bartay diinta ma aqaano buu dhahay waan islaamay laakiin hallay caawiyo waxay halka igu celi marka walaalayaal waxaan jeclahay in cibra qisada aan dhegaysanayno keliya aan iska daawano ma aha oo sida waxyaabaha waqtiga lagu lumiyo ma aha macnaa ku jira xigmad baa ku jirta rabbigeen subxaana watacaala waxyaabaha wuxuu bandhig ugu samaynayaa oo inoo tusaya inay cibra noo noqoto aan wax ku qaadano ninkaani waa jin waa boqor sixir intaa kasoo shaqeynay muddo badan ku mashquulsanaa maanta markuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah markiiba wuxuu ku fakeray inuu raadiyo diintii waxsu u baran lahaa inuu ka fakero waajibka allah saaray subxana watacaala iyo salaadiisii sida uu tukan lahaa inuu ka fakero soonkii iyo sida uu gudan lahaa innaga dad badan oo naga mid ah maanta oo muslimiin ah oo intaas laga yaabo inay intaasoo farac soo ahaayeen muslimiin oo waalidkood ay muslim ahaayeen maanta waxaa laga yaaba inaysan tukan waxaa laga yaaba inaysan qur-aankii aysan akhrisan baranin marka waxaan rabaa waxaas inay cibro idiin noqoto oo ninkan jinka aan ku wada dayano nabiyullaahi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu noo tilmaamayay in jinku inaga fiican yahay marba wuxuu yidhi baa la yidhaahdaa salawatullahi wasalaamu caleyh jinka idinka fiican arraxmaan markii ilaahay uu soo dejiyey suuradda arraxmaan la yidhaahdo mar kastoo ilaahay nimcooyinkiisa mid ka mid oo kasoo sheekeeyay rabbi wuxuu lahaa fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan nimcooyinka rabbi midkeebaad diidantihiin oo beeninaysa insigu dhagweyn waa iska dhagaystaa jinka wuxuu yidhi waa idinka fiicay waxay lahaayeen mar kastoo aayadda ay soo martay waxay lahaayeen walaa bishayin min nicmika rabbanaa nukadib falaka alxamdu ilaahu hal nimcooyinkaaga ka mida ma diidanin mana beeninayno mahadoo dhanna adiga askale marka insha allahu tacaala waxaan rabaa jinkaa inaga fiican inaan ku dayano inaan isku dayno inaan diintii raadino salaadii raadino masaajidadii raadsano khayrkii raadino arrintaa qisada maanta ayay noo sababta arrintaas markaad ilaahay bariday subxana watacaala oo tiri ilaahu miskiinkan waa dhibay meel uu diinka bartana ma uu haysto anuuna rabaa inaan dad la raadiyo diinta bara ilaahayow na tus meel aan geyno oo diinta uu ku barto masaajidkee lagu tusa masaajidkii ugu horeeyey oo aan arkay wuxuu ahaa masaajidka ku yaala hobs crossing oo sheekh ciise masaajidka sheekh ciise waa masaajid magaalada Melbourne ee wadanka Australia ku yaala badan dadka Australia degan baa garan doona insha Allah masaajidkii baan tagnay masaajidkii yaa joogay cidna ma joogin uu naga xirmay xilli lagu kala tagay maan ilaahay nagu beegay qadarta ilaahay meeshii cidla baan iska tagnay kabacdina sheekhi awla soo noqonay waxaan dhanay war sheekhow meeshii cidla waaye xagee ninkaan geeya misna ilaahay baa barideen ilaahay baan barina ilaahay bari buu dhahay sheekhu ilaaha bari ilaaha ku watay anu kuma watay ilaahay baan barinay baryo badan iyo nastahanaan badan iyo shukri naq badan ka bacdi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna tusay masjidka weyn ee madiina marwara masjidka isku sii daynay masjidka aan wax yar la socodsiin walaalaha masaajidka walaal ay maamada sheegayso waa masjid nabawi sallallahu alayhi masaajidka rasuulka nabawi masaajidka tagteen masaajidka baan tagnay waa buuxa masaajidka dad badan baa ka buuxa oo jin iyo insi baa leh waa ka buuxaan labaduba waa buuxaan sheekha noo soo kacay ilaahay baan barinay ilaahuna caawi ilaahu awoodaada iyo mucjisadaada weyn nagu caawi baryo badan ka bacdi sheekhaa noo soo kacay nin weyn oo maasha allah sharaf iyo karaama ka muuqato baa noo soo kacay marka ninkii baan waxaan iri ninkaan oo soo muslimay oo hadda walaalkeenahan wadaa oo islaama oo jinni ah oo u baahan inuu ilaahay wuxuu ku faral yeelay barto oo diinta barto oo mataqaanaa uu ilaahayga u soo noqday u cibaadaysto ninkii wuxuu yiri welcome laakiin waxaan ku iri sheekhow ninka caruurtiisi iyo naagtiisii xabis bay ku jiraan wuxuu nagu yiri xabis bay ku jiraan baan ku iri markaasuu xabisku xageeyey xabiska sheekhiiba ninkii baa la weydiiyey ninkii wuxuu yiri waa Kenya caruurtii Nairobi baa la iga haystaa iyo naagtii sheekhi markaan u sheegana wuxuu yiri de alla bari oo caawi dadka gabadhan
xiran iyo caruurteeda iyo ninka kula socda oo muslimay reerka caawi buu i dhahay ilaahay baan baryey ilaahu awoodaada nagu tus ilaahu awoodaada nagu caawi ilaahu awoodaada nagu caawi waxaan soo barina ilaahay bas waa ka soo kacnay madiina waa ka soo kacnoo kenyaanu nimi gurigii reerku ku xirxiraa oo suuqi weynaa muxuu ahaa suuqi weynaayo u dhowaa gaarisa geeskeeda waqooyi ah yaa nala soo geliyey gurigii markaanu nimid iridiisii waa istaagnay waa cabsaday anigii ninka wadayba baa la cabsaday waa meel dad jeel ah oo jeel dad ku xiran yahay oo karbaashku ka socdo oo jeemanka waaweyn lagu garacaya dadka oo cadaadka ka yeeraya labadii dhagood gawa baa iga yeedhay ummadda halkaa ku xirxiran gaal iyo muslimba dadku waa isugu jireen qolol dhan oo saa u safan baad arkaysaa darbi dheer oo aan la fuuli karin baa dhinacan ka ah intaas oo tarsiga derbiga tarsiga hoostiisa guryuhu ku yaaleen waa guryo gaagaaban oo xayn ah ilaa 6 ilaa 7 waa buuxaan albaabadooda hore waa bir shabaq leh qof isaab ay wada haystaan iyagoo ooyaya oo cabaadaya oo qaarna Allah buu baleeyahay waa muslim qaarna Jesus Christ iyo balay ku qaylinayaan iyo waxaan la garan karayn ilaahay baan bariyo waxaan ku waa aad baan u naxay aad baan u khalkhalay sheekhu wuxuu dhahay khalkhalina ilaahay bari ilaahay baan barina quraanki baan la wada ilaahay baan barina bariyaba wax yar ka dhex galo walaalaha say nala socdaan walaalayaal waxaan rabay inaan la socotaan qisada insha Allah taala si fiican u fahantaan masaajidka nabiga markay tagtay sallallahu alayhi ninka ay tiri waan arkay oo soo istaagay dadka soo dhex baxay waxay tilmaamaysaa maamul inuu ahaa oday garcad leh oo xirnay oo aada u ah sujuudna ay wajigiisa ka muuqato nool fara badan oo ka muuqdo wadaadada markaa jinka ka mid ah doonayana inuu soo dhaweeyo ninkan markaa soo muslimay waxyaabaha ay kala hadlayseen macnaha inagu qadam muslimiin jinka faashano inaan adeegsano lama ogola inaan saddex galnana ma aha hawlaheena lama ogola laakiin maadaama nin dhibaataysan oo miskiin ah meel uu wax u raadsaday cid uu diin ka raadsadan aysan garanayn markii rabbigeed bariday oo tir ilaahu itus oo ya caawi ninkan miskiinkaasi aan cid wax barto u la raadsho masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa loo geeyay oo jinkii muslimiinta ahaa ee meesha joogay loogu soo adeejinaya hawsha ilaah qabto subhanahu wa ta'ala ninkan miskiinka wax la baro ninkii wuxuu yiri ana xilka la wareegay ana diinta Allah baray subhanahu wa ta'ala ka xillo laakiin arintii waxa meesha soo baxday maxaabiista caruurtiisi la haystay oo uu jeclaystay inuu markaa la soo daayo maamada markay tagtay dadka ay leedahay waa cawaadayaan waa la garaacaya waa la karbaashaya dhibaato badan baa lagu hayaa xabsiyada ka buuxaan ay leedahay waa jin iyaguna muslimiin iyo gaalada isugu jira sida insigu wuxuu dulmiyo wuxuu dhibaateeyo jinkuna isu gumaystaan isku dhibaateeyo dulmiga iyo dhibaatadu adduunka waa jiraysaa ilaa Allah subhanahu wa ta'ala loo tago yawm al-qiyamah hadhowtiina uu xisaab adag Allah subhanahu wa ta'ala dadka u kala mariyo saadarteed waxaan leenahay insha Allah ta'ala ma aha kaliya dadka xabsiyada u furan dadka dhibaateynaya oo jin muslimiin iyo gaala aba dhibaya ma aha waxaan san leenahay dadka insiga ah iyo dadka jinniga ah labadaba kooda xabsi jooga iyo kan xabsi joogan oo kaliya shakhsi ahba ogaada dulmiga socda rabbul alamin soo hadda wax walba u tusay adoomadiisa buu god kasta iyo waxa ku jira oo la socda الله وحي تلمامي سبحانه وتعالى لقمان مركو لها لقمان الحكمة مركو ويلكي سواني محكيري ويلكي يضوب هدو صحر جرو صحر في صخرة دقح كل حجرة عذك بحديث كل حجرة أو سمانة جرى أما دولك الجوغة يأتي بها الله إلهي وكينا يوم القيامة دقح صحر آدوير أو دقح كل حجرة أما سمية ألا أما دولك يالا مجروا إلا يوم القيامة إلهي وكينا دونا سبحانه وتعالى معنى الله وحكا قرصين مجران الله أسمرك هدي إسوح وحكا قرصين محاكو حيقا حسابك كدبيسا صادرته waxaa dadka sixirka sameeynaya dadka hawlaha dhibka ku mashquulsan insi iyo jinn waxay doonaan ba noqdaan ilaahay uga baqa subhanahu wa ta'ala ogaadana in Allah subhanahu wa ta'ala qalbo arko dadkii markaa u gashay abaadkii shidadii dadka waxa ay tilmaamaysay in dadka sallallahu wata oo ay joogeen nimanka tilmaamba ka bixi kuwa waxay yihiin niman askar waay niman askar waay waa niman xoog badan dadka ugu xoog badan baa loo soo xulaan isiri markay qof ka yara ma jirin dad wada xoog badan oo strong ahaayeen jeeman bay haystaan jeemankan waaweyn baabuurtu markay lagu xiriiriyo gaarigu markuu ka fariisto jeemka weyn oo lagu xiriiriyo bay nimankan haystaan oo gacanta ugu duuban dadkii la dhacayaan
وكو كراعيان وكو كراعيان وكو كراعيان بلوغا اسقبسناي oo hinta is cabsanaysa dad la ilaaha illa allah wala waa ka maqlayay dad Jesus Christ la waa ka maqlayay kuwa iskale waa ka maqlayay wax walba qof naf aan lahayn ha qof naftu inay dhibaysa aad u jeedido iskale baad arkaysaa ani indhaha kuma dhamayn runtii aad baan uga naxay markaa ka bacdina ilaahay subhanahu wa ta'ala maan dacwad u dira ya rabbi rahmaan يا رب الرحمن إلهو كوان وحوك ما قبان كريه تن مسكين تاو عرور تحوك هاي ستو حبسك كوجنا إلهو كوان إلهو تن نوحري إلهو تن يعرور تن نوحري والله نين كذا إسلامي إلهو أذو كوسون نقضي إلهو أود هذا النتوس إلهو باور كاغ النتوس إلهو معجزة هذا النتوس بعد البرية بدن إيه قرآن كيو شيخ وضي وحان هلاي معجزة إلهي كبدي بالنص حري markii gabadhii nimankii ka soo baxeen iyagu iska soo durkiyeen oo ay iyaga iyo anaga dhexdooda joogto baan waxaan ku yiri sheekhow gabadhii waa nolol soo durkiyo intay taagan tahay sheekh maxamed markaa u sheegana wuxuu dhahaa dee bisinka qabsoo soo kaxee gabadh bismillah dheh subhanallah dheh alla magaciisa qabso gabadha soo kaxee ilaahay magaciisa qabsaday gabadhii baan soo kaxeeyey ninkeeda yaa keen markaa ka bacdi inaan hawshiyadii wadana soo maaha oo meeshina la ka qaabilay iyo madiina aadno on alla bari gallo on ilaahay weynayno on ilaahay nastaano on ilaahay u shukran naqano oo alla u niri oo ilaahay baawarka badnaa qabsano oo ilaahayna kulligayna deehadihiyo na kaxeeyey saanu u soconay alla bariga ugu jiray ilaahay u xisay yaa mutakabbiru yaa khaaliqu bashar yaa mutakabbiru yaa saan u lahaa dhag مساجد كوينا من هو استغنوا النبي صلى الله عليه وسلم او مدينه شيخي مركي هور نقابلي بان ويمين شيخ والله هذا وحنا شيخ وكان غيرك والله صوفري الهي بان اوديسا كصوفري الله سبحانه وتعالى بان نحريستي نينكي سو اسلامي او الله اسو سو ديبي وكان عرورتيسنا والله صوفري marka caruurtan iyo ninkan iyo reerkan إلهي درتي إيجا قبو إلهي درتي وحناني إلهي درتي وحبرة الله أبورتي برا حقه كربا برا وحكوات بيالي بر شيخه ومساجد كي نبي صلى الله عليه وسلم وأدقو وكيل كتايمان أنا إسجوري تشيي دفكان إلهي بأنا إيسو ديبي أنا أود داملي إلهي بقى إلا ملبورن أستراليا إلا كينيا إلا مدينة أود إلهي من كودي أصع أنا حتى يخصبي وباورك يمعجسوين كإلهي من كمته قال يعني تذكى أن آدين تأبرنا الضعيف كما الله كشيكين كرم معجسدان وحلا ضيع دام مقلان وحي وأرجع جحيا وح معجساه يكون قرية والله يابل ومسكح ذوق كسرنا لكن أنا ويقين سنة أنا حتى أساسها عاوي كور حدي لا دي أن مقلي لها وأخيونا يا dadka laakiin life baan u arka ilaahay macjisooyinkiisu wax walba yihiin waa awood badanaha caalamka isagaa xukuma wax walba kunbuu dhahayaa fayakumaaba noqonaya maxaa madiina igeeye ma awood baan leh maxaa kenya igeeye ma awood baan leh baawarkaas ma lahaan karo waa mucjisada ilaahay marka waxaan ka codsanayaa dadkayga Soomaaliyeed iyo dadka islaamka ahba inay yaqiinsadaan Allah inay isku xiraan inay isaga aaminaan inay quraanka isisaaran quraanku waa mucjisada Allahu kamid mucjisooyinka Ilaahay buu kamid sababtoo ah inta aan dhaqaatiirta ku wareegay haddaan quraanku wareegi lahaa hawsha soo ma heleen hal week oo aan quraanka Ilaahay la igu akhriyay baan baawarka Ilaahay ogaaday 27 سنة ساسي يجيدنيان دقاتير وليبا ودا قالا ah oo waxba ogay marka ilaahay ma had waxay uga sugnaatay subhanahu wa ta'ala oo ii naxariistay oo cadawgan iga hiliyay oo iga furdaashi oo miskiinkii aniga la igu kor qabiray oo la igu kor xiray ya sabab iga dhigay in ilaahay hanuuniyo oo xaq qabsado ma hadaas ilaahay ba iskale alxamdulilaahi rabbil aalamiin إلهو أضعم محله وحوية إلهو دين تادي حقاقا نقصك إدو حيا هلكا إن شاء الله تعالى يبقى ولا ليال سبحان الله وحار الجيني يا قصة عجيب كاهما مضينا الله سعطان الله سبحانه وتعالى
wuxuu inoo tilmaamay suuratulbaqara la yidhaahdo tusaale wuxuu alla inoogu soo qaaday si wax inoo fahansiiyo nin yiri intuu magaalo soo maray baaba'san oo dhulka taalo oo dhimatay oo waqti hore ahayd dadkeedii iyo iyadiina baaba'een sariir wixii dhan isku dumeen buu alla wuxuu tilmaamaya ninkii inuu yiri yani sidee ilaahay waxaa usoo nooleynaya magaalada alla wuxuu tilmaamaya caza wajal ninkii inuu nafta ka qaaday 100 sano oo meyd ahaa kadibna uu soo nooleeyay kadibna su-aalayo yiri meeqaad noolayd meeqaad meyd ahayd markaasuu yiri maalin ama maalin barkay qiimaha adduunka hurdada intay la eg tahay dhimashada yani waxaan aysan waqti qaadanaynin markaasuu yiri maalin ama maalin barkay markaas alla wuxuu yiri subxaana watacaala bal labithta 100 caam ma aha 100 sanaad meyd ahayd ee undur ilaa tacaamika wa sharaabika lam yatasanah bal fiiri cuntadaadii iyo cabitaankaagii isma bedelin cunto iyo cabitaan 100 sano ma dhici kartaa meel inay yaallaan isbedela waxaaba la tilmaamay weliba in xataa caano ahaayeen cabitaanku watay caano bannaan la dhigay 3 beri kadib waa soo uray 100 sano caano hadda isbedeli waayeen ka iyo cuntadii ninkii dameerkiisii lafihiisii ka war hadday baaba'san yihiin markaas inta ilaahay intaa uga sii tegay wuxuu yiri weliba intaa kaliya maahe fiirsa sidaan weliba lafaha isugu qabanayno saa wax u nooleynay daawo soo wajada hortiisa la fiil isku qabtay la sameeyay la abuuray markaas ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay qadir marka intaas buu cadaatay wuxuu yiri hadda waxaan ogaaday Allah wax walba inuu subhanahu wa ta'ala qisadan waxaan rabaa walaalayaal inay fahansiiso inaan kulligan wada fahanno Allah inuu subhanahu wa ta'ala wax badan wax walba Allah inuu awoodo subhanahu wa ta'ala inayna fahansiisan doonayna insha Allah ta'ala waxaan idinka codsanayaa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam maadaama dhowr jeer ay magaciisa soo celcelisay maamada kulligiin inaad nabiga sallallahu alayhi ku salisaan sallallahu alayhi wa sallam sidoo kale insha Allah ta'ala waxaan ka codsanayaa walaalaha dhamaato in walaalahan meesha fadhiya dhamaantood loo duceeyo in maamada loo duceeyo in ilaahay caafimaad iyo khayr iyo barako aan dhamaan lahayn kullu isugu daro maama maxaad insha Allah ta'ala walaalahan dhowrka kuna aad waqtigaaga siisay maxaad kula dardaarmaysaa walaalahayga muslimiinta ah waxaan kula dardaarmayaa waliba kuwa afkayga garanaya oo Soomaalida ah sababtoo ah waxa laga yaabaa Carabiga iyo Turkishka iyo afkayga ma garanaya marka walaalaha Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay quraanka Ilaahay isaaraan Ilaahay awoodiisana inay yaqinsadaan Ilaahayna inay baryaan isbitaal waxba ma taraayo Ilaahay quraankiisa ku carara Ilaahay awoodiisa ku carara Allah isu dhiiba Allah magan gala waxa weeye qof kasta oo jirada waxaan kula dardaarmayaa inuu Ilaahay uu ku cararo oo Ilaahay baryo oo quraanka isaaro quraanku waa shifo laftirkiisaba mucjiso quraanku Ilaahayna waa quwiyo weyn waa Allah kabiirka ah adbu oo awood badan yahay wax aan meel aan filayn iyo wax kaaga keenaya meel aad filayn yuu kaaga soo baxaya qofka isku dhiibana wuu ku filan yahay Allah waa ku filan yahay mucjiso kasta Ilaahay baa leh oo haysta oo powerful ya mutakabbiru shaatigiisa kibirkiisa waa shaatiga kibirku waa shaatigiisa marka walaalahay waxaan ka baryayaa inay quraanka isku dabiibaan inay Ilaahay isu dhiibaan inay isu duleeyaan inay baryaan meel kale oo la carara male dhaqaatiir anaga ku noogay ha aadinina Ilaahay aad warku waa cadiyaha walaalayaal insha Allah ta'ala cidii doonaysa in barnaamijyada dambe aan soo wadnay awoodda alle iyo quraanka inuu yahay daawo rabtay la socoto waxaan nagala socon kartaa Facebook-gaas Muhammad Star Ruqya cidii ku cusub waxaan leenahay waxa taabataa like si video kasto aan soo gelin aad u hesho insha Allah ta'ala intaan dib dambe hawada u kulmi doono wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh